wararka biilaanta ee gobolka Mudug ayaan ku guda jirnay deegaanka Jilable ee dadka ku nool waxa ay walaac ka muujiyeen xaaladda biilaanta ee deegaankaasi soo food saartay. Baashi Cali Yuusuf ayaa warkan inoo soo diray. muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool deegaanka Jilable ee bari waqooyi gobolka Mudug ayaa iminka walaac xoogan ka muujiyay biilaan kadib markii uu jabay ceel biyoodkii ku yaalay deegaankaasi. gudoomiyaha deegaanka Jilable ee bari waqooyi gobolka Mudug علي أحمد شامع دقعد oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda biyo la'aaneed isagoo dalbaday gurmad degdeg ah in la soo gaaro bulshada ku dhaqan deegaankani. motorkii Jilable wuu naga fadhiyaa dadkii waa ku baabay waa lagu aamay waa laga barakacay waxaan codsanaynaa si degdeg dadkaas waqtiga oo kulul wixii lagu noolaa oo fariistay waxaan codsi u nahay in la ka soo gaaro 8 sano wax dayactir meeshan ma imaan hay'adna wax ma keenin meel kale wax ugu imaan mana ahan dadkan dad ay awood ahaan abaar bay soo mareen shidaalka xataa ma daboolan karaan biyo waxa nagu sukaysa bitaale biyo nagu sukaysa biyo nooba dhawa ceel nooba dhawa deegaamada la fadhiyo waxa kamid ah xinda waco higlaale laba tuugo gumasoor fardabaqtiis intaas oo ku hareeraysan waa barakac. qaar kamid ah waxgaradka deegaanka ayaa dhankooda tilmaamay inay jirto xaalad bini'aadanimo tii ugu darneed oo la xiriirta dhanka biyaha maadaama ceelkii uu jabay. waxaan joognaa ceelkii Jilable waxaana ka jira ayaa ka jira marka waxaan codsanaynaa cid kasta oo ku shaqo leh iyo cid aan ku shaqo lahaynba in gacan laga geysto haday tahay galmudug haday tahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka haday tahay hay'adaha ku shaqo leh ceelku dayactir ayuu u baahan yahay waana fadhiyaa hadda waa jaban yahay sida u jeedaan hadda waa kuubooyinkii waa kuwa dhabarkay ku aadan laga cabsho halka kala furan waan ku halka duuduuban motorku waa fadhiyaa marka amartiisa weeye amartiisa waxna waa wax waqti u baahan waxna waa amartiisa waa arintan ka hadlaynaa waa amartiisi. deegaanka Jilable oo galabta aan joogno waxa ka jirta baan baa ka jira waxa jira hadii ay ku waa u jeedaan waxa weeye in dunyadii dadkiiba macnaha inaag dhooman yihiin motorkuna uu ka jabay xilli ugu xumaa oo hadii ay ku biyo loo baahdo marka waxaan codsanaynaa haday tahay galmudug haday tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka oo hadda qayb nagala joogto haday tahay hay'adaha deeqda bixiya wax kasta hadii ay ku waxaan codsanaynaa galabtay meeshaas oonkaas ka jira oo dad iyo dunyaba leh oo xilligu uu muxuu hadii ay ku yahay galabta ay marayso waxaan codsanaynaa in la caawiyo. Baashi Cali Xaashi warbaahinta qaranka gaalkacyo. Mas'uul wariyana Baashi Cali Xaashi oo warkaasi nooga soo diray gobolka Mudug. aan Muqdisho ku soo laabanay askar ka tirsan ciidamada qalabka sida la taliyaha madaxweynaha xildhibaano ayaa ka qayb galay iyo agaasimaha waxda nadaafadda aan ilaahdii ee gobolka ama golaha shacabka kaasi oo loola isxilqaana ka sameeyay magaalada Muqdisho. wariyana Maxamed Cali Sabriye ayaa warkan inoo haya. halkan waa darbiga dhismaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa lagu xardhay astaanta ciidamada qalabka sida iyo halkudhigyo kale ay ka mid yihiin dal waxa dhisa dadkiisa ummaddu waxay u baahan tahay nabad iyo nolol iyo sidoo kale halkudhigyo kale oo